Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barnaamijkeena ogaalka cilmiga oon kusoo qaadano dhacdooyinka adduunka ka taagan. Shaqooyinkan ayaa la filayaa sanadaha soo socda inay dunida ka maqnaan doonaan ama ay tiknoolajiyadu farakul ku hayso. Shaqooyinkaas waa shaqooyin badan, balse waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa inta waqtigu noo saamaxo. Waxaa jira shaqooyin qaar oo ka cirib tirmi doona dunida maadaama ay soo ifbaxayaan aalado casri ah oo qaban kara shaqooyinkaas xilli ay dunidu ku tallaabsanayso horumar weyn dhanka tiknoolajiyadda. Hadda iska ilaali ama ka taxadir ama baro xirfado ka duwan shaqooyinkan haddii aad hayso. Darawalnimada ayaa ka mid ah shaqooyinka meesha ka bixi kara xilli waxyaha gaadiidka adduunka la casriyeeyay, taas oo wax ka bedeli karta dhammaan sida loo hawlgeliyo. Waxaa jira malaayiin qof oo ku tiirsan shaqada darawalnimada oo ka cabsi qaba in arrintan ay saameyn ku yeelanayso mustaqbalka income-kooda ama dhaqaalahooda. Sida laga soo xigtay xarunta cilmi baadhista, dad lagu qiyaasay 3 milyan oo ku nool dalka Mareykanka ayaa halis ugu jira inay waayaan shaqooyinkooda maadaama ay soo kordhayaan tiknoolajiyadda casriga ah oo lagu kaxaynayo gawaarida. Isbedelada lagu sameeyo gaadiidka adduunka ayaa sii ballaaranaya. 25 sano ee soo socda waxaa yaraan doona shaqooyinka darawalnimada. Haatan waxaa dunida la wareegay qalab tiknoolajiyad oo ganacsigii suuqyada qabsaday. Xitaa dowladaha qaar waxa ay bilaabeen xoojinta xirfadaha la xiriira tiknoolajiyadda. Dowladda Jarmalka waxa ay bilowday inay taageerto mashruuc, isla markaana waxa ay danaynaysaa qorshaha ku aadan baabuurta sida iskood isku kaxaynaya. Waxay sheegtay in meesha laga gaaro 2040 in baabuur lagu qiyaasay 33 milyan ay geli doonaan waddooyinka dalkaas, kuwaas oo iskood isku kaxayn doona. Dhakhtarnimada waa arrin wareerkeeda leh maadaama bukaanada ay ku tiirsan yihiin dhakhaatiirta. Kadib saameynta ka dhalatay safmarkan corona, waxaa isbedello ay ku yimaadeen waxyaha caafimaadka adduunka oo dhan. Waxaa la xaqiijiyay in xitaa dhakhaatiirta ay ku adag tahay inay ogaadaan cudurrada qaar, taa beddelkeedana lagu ogaaday tiknoolajiyad. Waxaana shaqadan halis geliyay qalab casri ah oo lagu magacaabo telemedicine oo horseedi kara in dhakhtarku uu xaalad la socdo isaga oo jooga meel kale ama waddan kale. Shaqooyinka la xiriira maamulidda maktabadaha. Dadku waxa ay haatan iskaga tageen meelihii buugaagta lagu akhriyi jiray sida maktabadaha iyo meelaha cilmi baarista. Haatan waxaa dunida ka howlgala maktabado casri ah. Xitaa baryahan dambe waxaa buugaanta laga gataa internetka ama aad ka daalacan kartaa internetka adigoo gurigaaga jooga. Maqalhayaha ama khasnajiga sida Soomaaliga badanaa dadka qurbo joogtuna u yaqaanaan customer service. Maalmihii hore waxaa jiri jiray qof lacagaha ka ururiya xarumaha ganacsiga iyo goobaha kaleba isagoo oo kuu soo celinaya baaqigaagii. Dunidan casriga ah waxay horseeday in dadka intooda badan aysan adeegsan lacagaha caddaanka ah. Waxaa soo ifbaxay adeegyo casri ah oo lacagaha lagu kala xawisho ama lacagaha lagu kala helayo hab online ah. Shaqaalaha bangiyada. Bangiyo badan oo adduunka ku yaala waxa ay haatan yareeyeen shaqaalaha maadaama ay adeegyadooda ku bixin karaan hab online ah ama digital ah. Mustaqbalka waxaa dhici karta in bangiyada qaar ay iska xiraan xarumahooda maadaama adeegyada ay ku fulin karaan hab online ah. Dunidu haatan waxa ay u socotaa dhanka tiknoolajiyadda casriga ah. Fadlan haddii xirfadaadu ka mid tahay xirfadaha soo sheegnay, isku day inaad horumariso xirfadaada si aad ula qabsato tiknoolajiyadda casriga ah. Aad ugu mahadsan tahay ku xidhnaanta ogaalka cilmiga. Kulan dambe oo xiiso leh.